waxaa magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose soo gaaray wafdi oo hogaaminayo Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo kamid ah culimada waaweyn ee dalka Soomaaliya. Sheekha iyo wafdigiisa oo ka yimid magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ayaa waxaa si diiran u soo dhaweeyay mas'uuliyiinta labada gole ee maamulka Jubbaland, odayaasha dhaqanka, ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. waxaana soo dhaweynta sheekha kadib howlka nasashada ee garoonka magaalada Kismaayo warbaahinta kula hadlay Sheekh Cabdirashiid Gacme iyo sidoo kale Sheekh Cabdiraxmaan James oo kamid ah culimada magaalada Kismaayo waxaana ay sheegeen jazakallahu khayr ma hadda ilaahay kadib waxaan u mahad celinaynaa sheekha oo soo ajiibay codsigii aan ka codsanay inuuna soo booqdo wax weyn noogu filan sheekh ku soo dhawow magaaladaadii insha Allah taala maanta ay isniin tahay ayaanta waxa sharaf weyn noo ah ilaahina ugu mahad celinaynaa inuu Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo noo yimid culimadii aan sugaynayna ugu dambeeyay sheekhanaga wasiirka wasaaradda macdanta biyaha iyo bay'ada Jubbaland Maxamed Sheekh Yuusuf ayaa dhankiisa ka hadlay waxaana uu sheegay in dhankiisa uu ku faraxsan yahay soo dhaweynta ay Sheekh Umal u sameeyeen. Maxamed Cabdi Umal sheekh waxaan kulana soo dhawow magaaladii Kismaayo nabad ah barwaaqo ah fiican wax dhib aan ka jirin col aan ka jirin. intaasi kadib ayaa waxaa hadalka qaatay Sheekh Maxamed Cabdi Umal waxaana uu u mahad celiyay guud ahaanba dadkii ku soo dhaweeyay garoonka magaalada Kismaayo isagoona sheegay in uu qayb ka yahay culimadii maalmihii ugu dambeysay ku sugnaa magaalada Kismaayo ujeedka socdaalkiisana uu ku aadanaa sidii uu uga qayb qaadan lahaa wacyigelinta shacabka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Kismaayo. culimadii ugu horeysay soo dhaweyseen runtii waxay tilmaamaysaa ma aha arrin hadda hebel iyo hebel ma aha laakiin dadku inay culimadooda iyo dadka masaalixdii danaha guud u taagan qadarintooda iyo diintooda ay jecel yihiin bay runtii tilmaamaysaa runtii aad baan ugu faraxsanahay magaalada Kismaayo. imaatinka Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo kamid ah culimada waaweyn ee dalka Soomaaliya oo ku soo gaaray magaalada Kismaayo ayaa waxa uu qayb ka noqonayaa culimo maalmihii ugu dambeysay soo gaaraysa magaalada Kismaayo kuwaas oo ujeedka socdaalkooda uu ku aadanaa wacyigelinta shacabka ku dhaqan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose iyagoona la rajeynayo intay ku sugan yihiin magaalada Kismaayo inay kulamo kala duwan la qaadan doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo. Maxamed Qaasim Cali Waxar TV-ga caalamiga ee SAB magaalada Kismaayo.